wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa siisay digniin kama dambaysa dagaalyahanada Ukraine kuwaas oo ku sugan dhismo warshadeed oo ku yaala magaalada dekedda Mariupol sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada qalabka sida Ruushka oo ku socday kaliya mabaadi'da bini'aadantinimadu waxa ay mar kale soo jeedinayaan in dagaalyahanada guutooyinka qaranka Ukraine iyo calooshooda shaqaystayaasha shisheeye ay joojiyaan hawlahooda military laga bilaabo saacadu marka ay tahay 14 waqtiga Moscow ku beegan 20 Abriil ayna dhigaan hubka ayaa ay tiri wasaaradda difaaca Ruushka. ma jiro hal askari oo ka tirsan ciidamada Ukraine oo aqbalay dalabkaasi sida ay wasaaraddu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Dagaalyahano Ruushku taageero ayaa lagu soo warramayaa inay isku dayayaan inay xoog ku galaan biraha Azovstal ee Mariupol halkaas oo la sheegay inay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine iyo dad rayid ahi. Rashid Baracad, RTL TV.